Replace 2 is een Europees project. EFSAN is daarbij betrokken en Coventry University in Engeland. En het project heeft als doel om de gemeenschap te betrekken bij het stoppen van meisjesbesnijdenis binnen Europa. Marka ilmahan aha gudniinka wax fiican aan u arki jiray. Marka waa la soo weynaaday waa la guday laakiin markaan tababarka qaatay gudniinka waxaan arkay inuu gudniinka wax fiican ahayn. mataqaana isheeg uu raadna una ku lahayn xagga diinta xataa. Macaanta waxaan u arkaa gudniinka berigaygii hore gudniinka Soomaalida dhan way isgudaa oo yani wuxuu noo wax caadiya laakiin aanay ahaan gaar ahaan markaan ka sheekeeyo waxaan la soo noolaa 9 gabdhood يعني dadka ugu badan ee ololeeya inaan ahaaday ahayd gudniinka u shaqeeya laakiin haddana berigi hore sida madaxaygu ma gelin jirin sidaan imika u geliyay dad waxa la soo noolaa 9 gabdhood 9 gabdhoodba mid iyo nooc u gudan yihiin oo mid iyo rafaad qabaan yaaba hawsi kala dardaraadaan mayana gabdho aan la deganaan jiray oo shaqaysataan inuu wad ogtahay gudniinkaana dadka miyiga ka soo galay iyo dadka magaalada waxa u daran dadka miyiga marka ay gabdhahan soo galooti ma wala ahayn shaqaysataan ahayn guri kaliya wala ijaaranay marka waan is ognayn hoodahayna tan ku rafaadaysatan ku dhibaatoon waan is ogeyn hatta waxa ku jirtay gabadh la yiri kaliba ku madoobaatay waa ina kali laga saaro laakiin kalima ay ahayn waxay ahayd dhiig u fadhiistay markii dambe dhakhtar badan bay bedeshay marka waa la soo ogaaday inuu dhiigga sababta u yahay marka sidaa darteed anoo wax badan soo arkay hatta waan hadda ka horna waan ka sheekeeyay gabadh hadda geed hoosti ku dhashay oo ku rafaaday waan soo arkay laakiin madaxayga ma gelin jirin Binnen Replace 2 maken we gebruik van een model, de Behavioral Change cyclus. Dus het gaat over gedrag en het motiveren om dat gedrag te veranderen. In het eerste element gaan we op zoek naar iemand binnen de gemeenschap die al gemotiveerd is. Dus die, als het gaat over meisjesbesnijdenis, bereid is om te spreken over meisjesbesnijdenis met andere mensen om deze traditie te stoppen. We hebben 1 persoon gevonden die al getraind is en gemotiveerd om meisjesbesnijdenis als onderwerp te bespreken. En zij heeft 13 vrouwen in haar omgeving gevonden die bereid zijn om getraind te worden. Wallahi haddaan dib u fiirsho markii aan yarayna oo wadankeena joognayna waji gooniyay lahayd markii aan dibadda soo aadnana waji gooniyay lahayd markii aan aad u yarayno annagaba nala gudaayay waxay aad nolosheena wax ka mid ah annaga lafteenaaba waxay ahayd dhaqankeena iyo wax adiga aan moodayn inay ummadoo dhanba saas ay ku dhaqantay nala ahayd waagi aan xoogaa weynaano shaqaale dawlad noqdon weli wadanka joogo ayaan ogaaday inay dawladdi waagaas jirtay ay arrimaha gudniinka markaas fircooniga ay la diriri jireen markaas arrinta gudniinka fircooniga ahayd annaga nafteena howlwadeenada xisbigan kamid ahay waa ka doodi jirnay waa ka hadli jirnay waa ka soo horjeednay hase ahaatee markaan dibadda u soo baxnay ayaa waxaan ogaanay haddana shirka ugu horreysay waa xasuustaa ee aan ifsan ay noo qaban qaabisay waxay ahayd intaanan weliba islootal barsoonka noqon arrin aad adiga laftaada waday waxaan dareenay inay wadamadan dibaddaba ayna inta badanba shaqo ku leeyaan gaal iyo muslimba allah ka dhigay oo in kooban ay yihiin wadamada sameeyo oo Afrika markaas u badnayd arrimahaas markaan ogaadayna runtii dareenkaygii wax badan ay ka bedeshay waayo waxaan ogaaday wax jaahilnimo ay salkeedu yahay inay tahay oo haddii aqoon la helo laga bixi karo maalintaas wixii ka dambeeyana runtii waa u sii indho dheeraaday markaan noqday slowtal barsoonka 2004 wixii ka dambeeyana ilaa iyo haddana saad ka warqabto waa juhdi badan aan geliyaa oo shakhsi ahaan iyo urur ahaan iyo maxaa la dhihi jiray hooyo ahaanba waana arrin runtii aad u foolxun intii aan la diriri karnana aan rabnay. Element 2 vraagt eigenlijk van die persoon om mensen om zich heen te verzamelen die ook graag getraind willen worden, zodat zij gemotiveerd zijn om over meisjesbesnijdenis te praten met de mensen om hen heen. waqtigan soo galay maaragtay inaan noqdo warbixin bixiye waxay ahayd 2004 runtii 2004 waxaan u haystay waxaan ahaa qoftee maran oo kale oo balbal waxaan sida wax loo sheegi doono waxyaabo badan baa madaxayga waagi ka guurayay oo ahaa marka maxaa kala kulanta waagaas maadaama ay arrin taabuuya ay ahayd
وآد علس معناها maxaa kala kulantay dadkii Soomaalida ahay for laqtanka sidee bay ku arkeen waxay ii arkayeen runtii qof maaragtay aad waxyaabo aan laga xishoon ku hadlaysaa waxay ii arkayeen inay maaragtay yiraahdaan adigii baa iska sheekaynaya hablahaagii baad ka sheekaynaysaa walaalada baad ka sheekaynaysaa maxay tahay waxaan iska daa markaan casharo badan akhriyay wax badan aan fiiriyay waxaan arkay dhinaca caafimaadka horta runtii aad waxaan u sii eegayay dhinaca diinta waayo wax badan baa diinteena loogu soo hoos gabanayay mogtahay bas markii dambe markaan arkay diinta wadaado badan baan la hadlay dad badan baan maaragtay shirar badan oo aad qabatay ifsan ayaan iyo adiga sahra gaar ahaanba ayaan sameynay ayaan ka qayb qaadanay kabacdina waxaan idhi waxaan horta diinta kuma jiraan markaan diinta ka soo quustay baan haddana waxaan arkay inay dhaqanka inay xun tahay in maaragtay dhanka caafimaadka oo waxyaabo badan dumar badan baan la kulmay oo yidhi dhowr ilmood baan ku umul raacay oo maaragtay ilmahayga ka dhintay trainino badan baan galay 2006 training weyn baan inaga sameynay oo project weyn oo maaragtay projectiga ambar kii baan maaragtay wax badan ku sii baranay dumar badan ku aragnay runtii wax badan baan soo maray laakiin Soomaalidu waxay ii arkayeen oo noo arkayeen kulligayo inaanu dad fududaanaynahay oo maaragtay iyaga iska sheekaynaya oo markasta maxaad adigii baa waxaagii ka sheekaynaya marka waxaagii xubintaas waxay noqotay in waa xubin muhiima waxay noqotay xubinta muhiimka maadaama ay taranka tahay in maaragtay la difaaco maaragtay caafimaad ahaan iyo diin ahaanba loo difaaco marka anu taa waan ku adkaystay runtii والله ده waxay ku salaynayaan kulay dhaqan waxaan u maleynayaa diin dad badan oo waxa jira xataa diinta xageeda aaminsano oo sunna inay aaminsan wax asaas laakiin waxaan u maleynayaa inay xagga dhaqanka uun iyo aniga hooyada iyo waalidkay waxay soo maroo dhaqankii ka tagi maayo laakiin dawladda Netherlands sharciyo badan bay ka soo saartay marka waxa fiican in maaragtay marnaba kama soo harayso in wacyigelin la sameeyo wacyigelintu waa muhiim waxay gabadhaas waxa laga yaabaa inay ku dhagantahay wacyigelin wali arag laakiin markay sidan oo kale gabdhaha ugu timaado oo sharcigii loo sheego oo caafimaadkii looga sheekeeyo diintii looga sheekeeyo inay xogaa maskaxdeeda sii bedesho marka wacyigelintu waa muhiim guri ilaa guri la isku yimaado qoftii maartay aan soo bixin ama ilmo yar haysata ama maartay aan mujtamaca wali soo dhexgelin maadaama Soomaali badan ay 2 sano u dambeeyay ay Soomaali badan timid oo caruurtoodii inay gudaan rabaan oo ka yimi Soomaaliya toos uga yimaan waliga wacyi heleen wax fiican in guri loogu tago wax fiican bulshada la soo dhexgeliyo wax fiican in la tuso waxaan inay caafimaadka u daran tahay Na deze training gaan de mensen die getraind zijn naar hun gemeenschap terug en gaan met mensen uit de gemeenschap praten over het onderwerp meisjesbesnijdenis, de gezondheid, de gezondheidsrisico's en de connectie met cultuur en religie. laakiin imika alxamdulillah training oo qaatay darteed waxyaabo badan iska kay bedelay xataa sidii aan horeen u aaminsanaa mar imika wuxuu ii noqday waayadan dambeena aan u dhigaba aan dhigo gabdhaha ii yimaada gabdho badan baa ii yimaada meel xoogay waxaan deganay Soomaalida ku badan tahay waa weydiiya hoosta ka galiyahay ma lagu guday saado aragda gudin gabadh mala ma gudi doonta yaani waxyaabo badan weydiiya ani training ahaan intaan qaatay gabdhaha la kulmay imka tusaale ahaan 5 goor ayaan bimetel inaan sameeyay inaan wax house bisug la yiraahdo sameeynay gabdho badan ma wareystay qaarkood markay kula kaftamaya waxay ku leeyihiin amba waa la xanuujiya gabadheeda waan xanuunina iyagoo inkastoo kaftan runta agtiis ka yimaado laakiin haddana way ogyihiin waxay yiraahdeen wadankan waa ka mamnuuc guditaanka waa la dhaafay denba wax u qarsoonba laakiin inta la kulanay badi waxay yiraahdeen guditaanku wax macna ma sameeynayo laakiin wali waa la haystaa waxa dhanbayn la daayaa fiican أنا كل تلي لو أضيء مقلة Soomaalida كل سيدا هذا نقدان إمك واحد مالين سيدا أنا هانجرون إنه يهين كوا حتى أقول دقن هانجعلنا للديناي. Element 4 is eigenlijk de inbedding van dit project. Dus dat jaarlijks structureel een bijeenkomst georganiseerd wordt waarin meisjesbesnijdenis een onderwerp van gesprek kan zijn. maxaa marka adiga waxaad aragtaa arintan maaragtay in waalidiinta Soomaaliyeed runtii haddaad hadda fiiridid kulligood waxaa leeyahay muxuu ahay gudniinkii baa la kala saaray oo fircooni ma rabno laakiin sunnihii baan rabnaa
sidee marka arrintaas doodaas hadda socoto sidee u aragtaa waddankan Holland aan joognana nooc kastoo gudniina waa ka mamnuuc waddankan waa ka mamnuuc oo wuxuu uga mamnuuc yahay hadde sharci iyo kala dambeyn buu leeyahay in dadka qof bini aadan lagu xadgudbana ma laga ogola xadgudubkuuna ka mid yahay gudniinku xadgudubku kula ka mid yahay qolada u ololeynaysa waa fircooni ama waa sunni aniga ahaan waa aniga fikradeyda taas igu gaar ah waxaan qabaa inay wataan xoojin ay ku sii xoojinayaan jiritaanka gudniinka dad badan baan arkaa oo meelaha meediyada intay ku qabtaan shirar oo uga hadlaan oo meediya soo fariisan waxaan wadaado odayaal soo shiriyaan dhahayaan waxaan ka hadlaynaa gudniinka fircooniga gudniin waa gudniin xanuunna waa xanuun xadgudubna waa xadgudub haddaad ka soo horjeedid aniga taas anay igu gaar tahay iyo inta fikraddaas ila qabta gudniinkan ka soo horjeedaa wax la gudahayaana ma jiro waxaan waa wax dhaqan ah oo muslim gaalaba isticmaalaan anagu muslim baan nahay waa tuurnay mana rabno inaanu sii hayno aniga iyo inta igu fikradda waa taas waa aniga iyo inta igu fikradda tala ahaan yaad u soo jeedinaysa ama dawlad ha ahaato ama dad shacab ha ahaato sida adiga taladaada maxaa hadda aad dhihi lahayd anigu taladayda waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo wadankiisa gudniinka lagu sameeyo waxaan qabaa ina xukuumadaha sida wadanka iyaga anaga hadda dawlad buu leeyahay yiraahdo dawlad qaran balan dawladaha maamulada madaxda ururada bulshada dhalinyarada iyo haweenka iyo ururada bulshada mujtamaaciga inay ka qayb qaataan iyagoo aan dhihinin oo shaar kale u galin oo dhihinin waxaan ku hadlaynaa gudniinka fircooniga ah inay sida sax oo ay dhahaan ereyga marka laga soo hortagayo lama dhaho humanitarian marka laga hadlaayo lama yiraahdo waxaan ka hortagaynaa qaybtaasna waa dhaafnay ma dhahaan waxay dhahaan xuquuqda aadanaha hal dhaafo marka inay dhahaan ereyga gudniinka waa ka soo horjeednaa garabna ku siiyaan gudniinka gabdhaha waa ka soo horjeednaa mana inay dadka ururada bulshada iyo dawladaha iyo gobolada iyo maamulada jira iyo dawladaba inay baan anigu fikrad ahaan qabaa oo aan leeyahay fikrad ahaan u soo jeedina inay dhahaan horta ereygaas tiitalkaas la siiyay gudniinka fircooniga in la bedelo marka dadka maxaa ahaayay oo dadkii Soomaaliya ayaa macnaa fariintaas u fartay dadkan kale oo Yurub ku nool maxaa dhihi lahayd anigu waxaan ku oran lahaa halkan dadkan wadamadan westernka dadkan jooga inay iska dhaafaan oo ilaahay ka soo waday meeshii lagu qasbay ma meeshan sharci baa yaal noloshoodana inayna ku haligin ilmahoodana dib u geysan mid adduunyo mid aakhiro iyaguna dib isu geysan ay intay ka faralaabtaan waxaan ay u jeestaan inay ka soo horjeestaan oo iyaguna dhahaan iyagu chance haday u heleen wadamo oo laga horso dawlad adag iyo sharci adag ilaahay nasiibkooda ka dhigay inay yimaadaan in ayaguna taageeraan kuwa aan awood u lahayn inay ka hortagaan oo garab siiyaan oo garbiyaan ayna sameeynin waxaan loo baahnayn oo dawladii ay la joogan martida u ahayd ba mamnuucday oo tiri waa dambi inaynan isku dayin inay sameeynin hadda isku dayaana ayaga jawaabteeda helaya waxaan jeclaan lahaa bulshada adduunka oo gabdhaha gudda anu kaliya ma dhahayo Soomaaliya laakiin bulshada adduunka oo gabdhaha gudda inaan ra'yigayga iyo fikradeyda gaarsiiyo codka la weyneeyo codka ka hortaga gudniinka gabdhaha baan jeclaan lahaa 2015 in la weyneeyo oo una ku koobnaan xaafad iyo guri iyo dawool maalinta 6 February maalin weyn oo adduunka aan ka noqoto oo lagu wada borar iyo tabeelayaal iyo banaanbaxyo lagu weynayna inay noqoto taas aan jeclaan lahaa In de praktijk is gebleken mensen die zelf gemotiveerd zijn om een traditie te beëindigen heel goed de boodschap kunnen overdragen naar mensen om hen heen. Als die mensen gemotiveerd zijn tot het beëindigen van de traditie meisjesbesnijdenis, motiveren zij
hun directe naasten weer. En zo zie je dat het als een soort olievlek zich uitbreidt. Dat is de kracht van dit project en dat is in de praktijk gebleken als zeer waardevol en werkzaam. waxay soo jeedin lahaa gabdhahaas inay maaragtay waxaan kula talin lahaa horta marka hore diin male dhaqankii waa dhaqan xun iyo dhaqan fiican buu ka leeyahay waa laga tegi karaa maadaama ay xubintii dhibaato badan la kulmayso oo dhaliinkii la kulmayso oo ay la kulmayso dee guurkii maalintii guurka waxaa fiican in la iska daayo waxun xanuun un qofkii bini'aadamka daba socda ilaa iyo intuu ama dee ka dhimanayo ama ka dhalma daynayo waxaan odhan lahaa inay yimaadaan oo soo baxaan oo warbixinada soo doontaan oo maaragtay nala soo xidhiidhaan wayna yaqaanaan runtii dad badan wayna maqleen haddayna maqalna meelihiina laga soo xidhiidhayay waan siinaynaa insha allah bismillaahi kariim oon diintii eegno haddaan ilaahay subxaana watacaala iyo kugu cadaabaynin dee inaad iskaga tagtid oo maaragtay warbixinada soo doontid baan kula talin lahaa. Nou, een van de opdrachten binnen de training was voor deze vrouwen om op bezoek te gaan bij de docenten van de Koranschool. En met hen te spreken over het onderwerp meisjesbesnijdenis. Vanuit dit gesprek ontstond er een behoefte aan training voor Koranschooldocenten over het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis en het verband wat meisjesbesnijdenis heeft met religie of niet. marka maadaama adiga weliba aad tahay macnaa macallimiinta dadka maaragta ama diinta barta ama diinta macnaa aad runtii oo muxuu ahay ku mashquulsan aad tahay maxaa is leedahay marka dadka sidee macnaa arrimahan aad rabtaa inaad u wacyigelidid aad u sii wadid إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان إلهي آية قرآن وحكولي لقد خلقت الإنسان في أحسن التقويم إلهي بن آدم وحكا أبو ري إن قرحة وقرح بدن إلهي بن آدم كسمي مركا دي إلهي وأجي هاي بن آدم سوء سمي يبو هدي عد كاسد حنا يدك إيك جوينا يان إلهي بكل عارف الهاب وده الهال الجرو لكن إلهي بعد ما أسير إلهي بن آدم وحكا كسمي قلقة وهو ناكسن مركا وح ومعنا إشاق بن آدم وحنا وقفك بن آدم كويا لما بجرتان قبعني مركا wacyigelin waan ka samaynaynaa diinta islaamkana ma ku jirto meel ay ka leedahay ma jirto mataqaana ay sheeg gudniinka waa waajib ama hala gudo wax mataqaana diin ku salaysan ma aha hadana intaas aan qabaa. Tijdens onze training zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen. Kennis over meisjesbesnijdenis, kennis over gezondheid en de gevolgen van meisjesbesnijdenis voor de gezondheid. Het onderwerp religie en meisjesbesnijdenis is besproken door professor Dr. Hidder. En daarna wat het is om als vrouw, leider in gezondheid en meisjesbesnijdenis binnen je gemeenschap te werken. iyadoo maanta 2014 aan ku jirno maxaa ummadayna arrintaas ku qasbay inay sii wadaan tajaahilnimo ayaa u geysatay laakiin markii ummadda haddartaan waxaan aragnaa raadiyoyaasha iyo kulli ilaa iyo heer tuul in dadka laga wacyigeliyo oo wacyigelin badan ay ka socoto dadkii ay leeyihiin kulli gudniinka waa wax xun wax fiican aan ahayn diin iyo wax maanta bini'aadanimo xagga caafimaad aan raad ayna ku lahayn ilaa iyo gudniinka haddii laga sheekeeyo waxaad arkaysaa ilaa iyo ma dhalaysnimo xataa heer qofka bini'aadanka gaarsiin karo oo gabadhan weligeed memory ay ku noqonayso aanan memory ay ku noqonayso nolosheedaba ay waxayna ilaawi karin ay tahay gudniinba hadday maqasho hey wax macnaa ay sheeg nabar ku taagan ay tahay waxaad moodaysaa sidii awal inay hadda xoogaa ka soo roonaanayso dadkii ay wixii iswada gaarsiiyeen hadda aniga maxaa kale dariskayga aan sheeg qof dariskeeda qof kale ay sii geyso laakiin awal markii waxaa la dhihi jiray halla gudniin le maa laga sheekeynaya laakiin gudniinka markaa dhex gasho wallaahi waa arrin kolley inkastoo haddaad dib u fiiriso dad badanna ay dadaalkii badnaay iyo juhdigii la geliyey ay dad badan isbedeleen dareemaay sharciyadii soo baxay wacyigelinta la dhiibay inay runtii wax badan bedeshay haddana runtii wax badana haddana waayo waxaa waaye fahmiddii aad moodaa inay weli dadkasi uga maqan tahay aniga runtii qaladaad badanna wariyaashaan saaraya sababta aan wariyaasha u saarayaan kuu sheegaya wariyayaasha aniga markaan dowladda ka soo tago waayo dowladda sharci dejinta lagu dari karaa waa laga doodi karaa waxaa moodaa wariyaasha inay afkooda sembiri ay ku adkeeyaan wax ku kalif aniga ma aqaano gudniinka fircooniga la dagaalanka meeshaasaa wacyigelin laga sameeyey oo ku saabsan gudniinka fircoonigaad maqlee wacyigelinta la sameeyey waa gudniinka in laga hare maxaa hal qayb loogu dhegan yahay waayo macnaheedu waxaa waaye markaas ay noqohaysaa Soomaaliya nahay hadallada waa fahmi karnaa meesha u dhacayaan gudniinka fircooniga laga hadla markii macnaha waxaa waaye gudniin fircooniga un baa la diidan yahay
war nabiga calayhi salaatu wasalaam dad muslin ahaana gabdhihiisa ma uusan gudin haweenkii oo qabay ma gudnayn meesha diinta marka looga lamaanayo aniga ma fahmin marka waxaad moodaa inay dhinacyo badan aniga wadaadada waxaananba u dhehin kaligood inaa annaga dadkayna wax bartayna aanan weli diyaar u ahayn wadaadadiina aysan diyaar u ahayn waayo mas-uulkii dowladda ka tirsanay oo isaga khudbo inta shir tago ummaddii u khudbayhaayo oo leeyahay gudniinka fircooniga kelmaddaas waxaa waaye ummadda kaasay ku dayaysaa marka ninkii lagu daya lahayba haddii uu isugu dhahayo gudniinka fircooniga ma u maleeyahay marka inay dadka kalena ay wax ka dhahay laakiin marka dhinaca kalena aan aad u dhaliilayo waa wariyaasha midaas waa Soomaaliya laakiin ayaga halkan dadkii joogan oo Yurub ku nool oo sharci yaala ayaa waxa maxuu ahay hadallada socda ilmaha qaadaan ay wali wadaan ay soo gudaan ay Djibouti geeyaan Somaliland geeyaan Soomaaliya geeyaan sida sheegay arimihii dadkii halkan maxaa ku qasbaya isleedahay aniga dadka halkan waxaan u maleeyahay kulli way isku xiran yihiin sahroy wadankii iyo inta isku xiran yihiin sax marka wadankii dadka inta joogo waxyaabaha awalba shalay markii gabdhaha la gudaayay ay weli wadankii ka jiraan Soomaalida inta joogto badana qolfoofkooda joogo qalbigooda xaqoo jira dadaa weli boorsooyinkooda u xirxiran yahay nin walba marka wuxuu isleeyahay xagga hadaa tagto shalay gabadha sababtii loo gudaayo badneedo isla ognaho in nin guursada aan la helaynin inay tahay gabar aan si fiican loo korin wixii oo dhan wuxuu isleeyahay hadhow hadaa gabarti la noqoto ama noqotaa gabar lagu caayo marka waxaad moodaa inay isku xiranahay marka waxaa moodaa inuu maqan yahay markaas isku xiridii wadanka iyo inti waayo anaga inta hal lugaa noo taagan dadkii marka saasaan aniga qiyaastayda markaan sii darsay hase ahaatee runtii wacyigelin badanaa la sameeyey weli dadku dheggan waa jiraan waana ka bi'i karnaa haddaan laakiin annaga runtii isu sheegno